guur waxaa ugu naajaxsan midka ninka uu aamuso. haddaad aragtaan dad muddo isqaba haddii mikrofoonada aan u dhiibna akhyaarta odayaasha meesha joogo ee 30 sano 40 sano guriga lahaa nin walba wuxuu ku badbaaday ma hadli jirin. haddaad hadashid oo wax walbaba kelmad aad ku jawaabid oo jawaab ay ka soo horeyso guurkaas ma socdo. walaalika waxa ugu wanaagsan ee dumarka lagu la dhaqmo waa la aamusaa waa la dhageystaa un kaliya. dhageysiga tirada badan adna stresska iska dajinaysa iyaduna biidillah subhanahu wa ta'ala kalimadeeda sheeganaysa halka waa halka kaliya marka lagu wadi karo. waxay dhahan anjax zawaaj ee binaadamka dhexmara waa ma yulaazimuhu zawju samta intu aamusan yahay buu gurigaasu uu dhaqaaqi karaa biidillah subhanahu wa ta'ala. marka guur laga hadlo badana anu waxaan dareemaa odayaasha un baa dhaqdhaqaaqa kursigu la ruxruxdaa laakiin kelimadu dadkoo dhan bay u dhacaysaa iyadu noocan ma way dareemi karaan. guur wuxuu rabaa marka dhowr shardi haddii la helo. shardiga koowaad ninka ragga ah haddii uu guursado waa inuusan gabadha ku mashquulin. labo hadduu guursado guriga waa inuusan noqon guri rucbi ama tarar uu ka jiro maantana hanjabaado ay jirto. saddex guriga waswaaskana waa in laga daayo oo shuqulada Yurub loogu yimid. shan waa inuusan qofka isagu nafsadiisa uu ka fakerin ee lamaanaha uu la joogo uu ka fakaro. talixaad mas'uuliyad inuusan ka baxsan. lixda qodob waxay ku salaysan yihiin age bay ku salaysan yihiin da'da dadka meesha fadhiya. marka badana waxa la hadli jiray dhalinyarada uu kaliya laakiin qof kasta da'da 20 jir ilaa 70 jir fariintan baan gudbinayaa. waxay tiri gabadhii iyadoo dardaarmaysa waxay tiri hooyo haddii aad guursanaysid 20 jir ogow aduu kugu mashquulaya ma guriga kama baxay aduu kama ka dhamaanayo. 30 haddaad guursatina waa hanjabaad wallahi waan ku furaya wallahi haddaas dhaqash waan ku furaya wallahi saddexan kugu furaya. 40 maadaama guurka uu ka daahay waa waswaas badan yahay yaa la soo hadashay halkay ka timid intay ku soo daahday makankii ku shukaansan jiray baa 40 haddaad guursan. 50 jirna isagu mushkiladna calooshan u buuxi bay tir garaamkiisa hadduu helo waa ku daynayaa bay tir ka isaga. 60 jir marka la gaarana mar walba cimaamad buu sitaay dad baan kala dhicinayaa garbaan ku jiraa oo ka dhamaan weynaa guriga shaqo kuma leh. 70 markuu gaarana cidi ku dumaal leh raasay bay tir meeshan waxa ma yaalaan. marka qof walba dabcan eeg buu ku jiraa eejkaana ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo laakiin mas'uuliyadda iyadoo mas'uuliyad ahamiyadeeda leh nabigana uu noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam wa billahi tawfiq.